السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada YouTube channelkeena qofta idin la hadlayso waa Asmaa. halkaad naga daawanaysaan ama aad nagala socotaan waa channelkeena Asmaa Cabdisalaan. waxaan soo dhaweynayaa asxaabta cusub ee channelkayga kusoo biirtay. waxaan leeyahay soo dhawaada gacmo furan qalbi furan. waxaan mar labaad soo dhaweynayaa asxaabtii hore ila joogtay. waxaan leeyahay aad ayaa u mahadsantihiin. adigana haddii tahay daawada markii uu horeysay aadna soo booqato please subscribe ka noo saar. asxaabey waxaan rabaa caawa inaan idiin soo gudbiyo qiso ka hadlaysa waaqaca dhabta ah. qisadan ayaa waxay ku socotaa gabadhaas oo nolosha dhib badan aragtay. dhibka ay soo martay iyo waxa ay soo martay darteeda ayay waxay u noqotay jiilkeeda qof maaragta tusaale ah. qisada gabadhan ay ku socoto waxaa la yiraahdaa Khadija. gabadhan waxay dhalatay 1966 waxay ku dhalatay wadankaas Yemen magaaladiisa caasimadda Sanca. Khadijo waxay ahaayeen familkeeda hooyadeeda iyo aabaheeda iyo laba ilmood oo hooyadeed iyo aabahood dhaleen. yacni laba walaalaheeda iyo hooyadeed iyo aabaheed ayay ka koobnaayeen. Khadija aabaheeda wuxuu ahaa nin aad u adag oo u arka gabadha inaysan ahaynba yacni qof maaragta qiimo leh oo hooyadeed uu dili jiray. yacni dhib badan ayuu u geysan jiray. saasay tahay hooyadeed iska sabri jirtay. waxaa dhacday aabaheed sida uu ahaa oo aabo aad u adag oo hooyadeed maaragta dilo 24 saac oo yacni aad u maaragta u bahdila ahaa. waxaa dhacday inuu odaygii aabaheed ahaa Khadijo markii dambe waasho. odaygii haddii caqligiisa ka tagay uu waashay. maamadan way la sii noolaan weyday. dee ninkii shalay asagoo miyirka qabay sidaa sameynayay hadduu miyirkii ka tago dee waxaa wax ka daran ayuu sameynayaa. markii la noolaan weyday waxay ka tagtay guriga aabaheed ayay aaday. guriga aabaheed waxaa lagu dhahay aabaheed wuxuu kusoo dhahay aniga gabar iima soo noqoto marka ku noqo guriga ninkaaga. adigu markii dambe maamada way kusoo noqotay gurigii ninkeeda oo waxay go'aan ku gaartay inay iska furto Khadija aabaheeda maadaama uu macnihii maskixiin u xanuunsan yahay. adigu markii dambe way iska furtay. Khadija hooyadeeda iyo saddexdeeda ilmood waxay u wadatay guriga aabaheed ayay la aaday. adigu odaygii ma soo dhaweynin oo yacni caadi ahaan markaas waxaa loo arkayay in maaragta gabadha haddii lasoo furo aysan soo noqon karinba guriga waalidkeed ay isku soo noqon karin. adigu waxaa dhacday in maaragta markii guriga ay joogtay ninkeeda iyo micnihii gurigii lagu qabay ay joogtayna ninka xanuunsan markii maadaama way iska furtay aabihiis wuxuu ku dhahay maamada yacni ilmahaaga yacni adigaba kire iska bixiya maadaama aa wiilkii iska furtay isagoo xanuunsan kire iska bixi buu ku dhahay ila ma joogaysin kire la'aan. adigu sidaas ayay maamada uga tagtay guriga aabaheed ayay ku noqotay. guriga aabaheed ayay iska joogtay ayadoo waliba siday rabtay aysan haysan ilmaheedii yacni xataa adiga culis nuguma haysid laakiin ilmaha baa wadataa ayadoo yacni markasta hadalla ay dhibsanaysa maamada dareemaysa maqlaysa ayay waxay samaysay haddana waa iska joogtay. adigu waxaa dhacday markii dambe abtiga Khadijo inuu dhaho maalin maalmaha ka mid ah. Khadijo waxay ahayd qof aad u waxbarasho jecel ayadoo waxbarashadeedii iyo ku jirta inuu dhaho Khadijo abtigeeda ayaa u yeeray oo wuxuu ku dhahay Khadija waa lagu soo doontay waxaana ku soo doonay nin ku nool wadankaas Sacuudiga laakiin asal ahaan yacni ka soo jeeda Yamani ah baa ku soo doonay marka u diyaar garow buu yiri micnihi waa lagu soo doonay waa lagu guurinayaa u diyaar garow. Khadijo markaa waxay ahayd ilmo yar oo maaragta 11 sano jira oo iskuul dhiganaya oo wax baranaya. way ooyday cunugtii waxay tiraahday ii sheeg maxay tahay waxaa ka hadlaysiin. waxaa dhacday in maaragta hooyadeed ay gacanta qabatay ay tiraahday maamo waxba ha ooyin aniga xataa sidaas oo kale ayaan ahaa marka waxaan waa wax iska caadi ah waana maaragta waana iskala qabsan doontaa. adigu waxaa dhacday
in maaragtaa uu ninkii Khadiija lagu daray oo nin ka weyn ahaa ayadoo markaas yacni 11 sano jirta, yacni nin 31 sano jira, micnihii farq weyn ayaa u dhexeeya. Ayaa lagu daray, wuu kaxaystay, wuxuu u guuray ninkii ii sheeg muxuu ahaa wadankan Suuriya oo Sacuudiga uu ka wareegay. Suuriya ayuu la aaday, halkaas ayay iska joogtay. waxay kala kulmatay tacaddi badan, waxay kala kulantay wax yacni ilma waxa laga rabaa 11 sano jir waa ilmo wax baranaya oo maahan yacni qof nolol guur iyo waxa geli karta. Markii dambe waxay sameysay wuu soo celiyay, wuxuu keenay familkooda markii maanta dhan cunug yaroo maaragtaa dil iyo dhib iyo rafaad la soo kulantay ayaa markii dambe waxaa dhacday inuu wadankii ku soo noqdo, uu soo celiyo. Wadankii markuu soo Yemen u keenay waxaa dhacday in guriga ay aabaheed iyo waxa ka wada yacni guriga hooyadeed iyo awowgeed iyo abtigeed inay dib ugu soo noqotay. Kadibna waxaa la yiri ninkii muddo kadib uu iska tegay, wuxuu aaday Suuriya shaqadiisii ku noqday. Muddo markuu Suuriya joogay ayaa dadkii dhan waxay leeyihiin war naagtaada maxaa u soo ceshan weyday adiga iska maaragtaa iska wareersan. Adugu meesh sidiibu ayuu u soo noqday, wuxuu yimid wadankii uu ku soo noqday, wuxuu dhahay aniga xaaskeyga halaysiiyo oo haliigu soo wareejiyo. Yacni khaladaad badan bay sameysay laakiin haddana waxaan diyaar u ahay inaan mar labaad aan ka haysto. Awowgeed iyo abtigeed waxay dhaheen anaga gabar oo la furay guri nooma joogto, raac ninkaaga. Markii dambe waxay tiri hooyadeedna waxay ku tiri raac hooyo ninkaaga. Markii dambe waxay sameysay Khadiija waxay cabtay kaloriinta oo sun baashan kaloriinta wax lagu dhaqo ayay cabtay. Markay aragtay hooyadeed gabadheedii oo indhaha cadeysay oo sun cabtay, yacni ma raacayay tiri. Markii ka diidayna sun ayay cabtay, baashaas ayay cabtay kaloriintaas. Markay aragtay gabadheedii indhaha cadeysay iyo xaaladda gabadheeda ku sugan tahay ayay waxay tiri wax walba waxay ku qaadatay gabadheeda ma raacaysa ninkaas. Sidii ayay maaragtaa maamadii markay yacni gabadheeda la saf noqotayna walaalkeedii aabaheedba waxay ku dhaheen gabadhaadii ilmahaaga nagala tag, ilmaha kale noo jooga ayay naga fadareynaysiin. yacni dhaqankii iyo mataqaanaan iyo caadooyinkeena iyo dhaqankeena yacni waa ka gudubteen marka naga tagaa lagu yiri. Khadiija iyo hooyadeed iyo labadooda ilmood meel cidlo ah baa looga tegay, yacni guri gooniya ayay iska raadsadeen. Markaas maamadu dhaqaale ma haysato, markii ayay waxay bilowday maamadu inay shaqaysato harqaan iyo talo-tasho oo dhar iyo harqaan iyo waxbay talo-tali jirtay. Waxaa kaaga daran ninkii Khadiija oo yacni la siiyay iyadoo 11 sano jirta wuxuu yiri maba idinka tegayo, waa idin soo dacweynaya lacag intaas la eg ayaa iga keen maqan, lacagteeda ayaa u baahanahay. Markaas ayay maamadu waxay dahab haysatay iyo waxay shaqaysaba waxay siin jirtay ninkaas ilaa ay lacagtiisa u dhamaystirtay oo ay tiri gabadheeda banaanka iyaga mar. Adugu waxay dhib badan iyo rafaad badan soo maraan Khadiija iyo hooyadeeda. Khadiija waxay tiri hooyo ana waxbaan baranayaa, hamigaygu inaan wax bartaa oo gabar aqoon leh oo wax qabsan karta aan noqdaa. Waxbaan baranayaa ayay tiri. Waxbarashadii ayay dib ugu noqotay. Meeshii area-diina waa ka fogaadeen oo ardaydii iskuulkii ma garanayaan inay tahay gabar yar oo maaragtaa iyadoo 11 sano jirta la soo furay oo la guursaday. 11 sano iyadoo isla jirtana la soo furay. Waxeedii ayada qalbigeeda ku qarsatay, horay nolosha uga sii socotay, yacni qofka damage baa gaaraya. Waxeedii dhan yacni qalbigeeda ku qarsatay bay ardaydii age-keeda ahaa wax iskala baranaysay. Waxaa dhacday in maaragtaa Khadiijo idaacada Yemen oo inay maaragtaa shaqo u doonatay oo laga siiyay barnaamij ciyaalka xag ah laga siiyay. Adugu barnaamijkaas ayayna ka shaqeyn jirtay, dhinacna waxbay ka baran jirtay Khadiijo. Sidii ayayna nolosha hooyadeed iyo ayada iyo hooyadeed isku maareynayeen iyo carruurtooda. Muddo yar kadib Khadiijo waxay kaalin fiican ka gashay waxbarashada. Waxay xareysatay waxbarasho sare oo wadankaas Amerika ah. Nasiib wanaag way u soo baxday. Sidii ayayna ku tagtay abtigeed iyo awowgeeda ku haya ma gabadhaadii baa hadda muxram la'aan kaligeed diraysaa waxa u diraysaa wadan ka fog. Hadday ceeb ku keenaysaa, hadday xumaan ku keenaysaa ayadoo ku haya waa naceebeynaysiin wadanka magaceena ku deganahay magaca naga dilaysiin gabar baxda anaga ma naqaano gabar ayadoo 10 sano jirta nin la siiya guriga gasho ama god ama
ama god bay ka aadaa ama yani gurigeeda kama soo baxdo. adugu yani hadalladaas iyadoo waalidkeeda Khadiija ay dhahdhahayaan ayay baxday waxay aaday wadankaas Mareykanka. halkaas ayay waxbarasho ka bilowday. adugu Khadiija say wax iskaga baranaysay maasha Allah. markii dambe waxaa dhacday noloshii nolol ka gedisan bay aragtay, dhaqankii yani dad ka duwan bay aragtay, dad waxay aragtay muslim iyo gaal wada nool oo aan isku xadgudbaynin. adugu muddo yar kadib Khadiija waxay isbarteen wiil oo Amerikaan ah laakiin asal ahaan muslim ah oo yani nin muslim ah oo Amerikaan ah ayay isbarteen. waxaa dhacday inay ku tiri aniga si kasto aan wadankayga uga soo tagay, si kasto aan u ahay gabar muslimada, si kasto aan u ahay gabar yani Yemeniyad ah, haddana waxay tiraahday diinteyda iyo dhaqankayga kama tagaayo oo aniga ehelkayga ku ogeyn iskama ka guursan karo. waa inaa wadankii Yemen aadnaa oo aad reerkeena kusoo baraa oo reerkeeni iga doontaa oo sidaas liikaasiya sidaas isku guursanaa. adugu gabadhii way soo waday, waxay soo kaxaysay ninkii, waxay keentay meeshii Yemen ahayd. sidii ayay faamilkeeda ku bartay. dadkii inta badan qayb baa diiday, xataa waalidkeeda qaybtii siiyey oo bixiyey xalfadeeda aroos kama imaan. arooskeedii waxaa yimid hooyadeed iyo gabdho asxaabe ee ahaayeen iyo dad iska maarata kooban baa yimid. wixii nin ma imaan. waxay dhaheen gabdhahayba naga fadaraynaysaa iyo gabadhan dhaqankay wadato waaba dhaqan kale gabdhahayba naga yani naga halaynaysaa. adugu gabar nin ayada dooqata iyo lama yaqaano, gabdhaha anaga nimanka u dooqana anagana nimanka siina, marka dhaqan kale wadaaba nimankii oo dhan maba imaanba xalfadeedii. adugu sidii ayay ku guursatay, sidii ayay Mareykan ku noqotay. muddo markii xagga jirtay ayay waxay go'aan ku gaartay, waxay tiri ma aha inaan noqdo qof anaani ah oo yani naftiisa uun ka fakara, waa inaan waxay tiri wadankayga ku noqdaa oo gabdhaha yaryarka oo 10 sano jira 9 sano jira odayaasha la siinayo yani waa inaan arintaa wax ka qabtaa ayay tiri. adugu sidii ayay maaragtaa wadanka ku timid Yemen ugu soo noqotay. idaacada yani idaacada localka ee Yemen ayay waxay ka dalbatay inay siiyaan barnaamij wacyigelin ah oo bulshada ah. adugu way siiyeen. halkaas ayayna wacyigelinteedii ka waday oo bulshada wax ugu sheegaysay in gabdhaha yararka laga daayo guurka 8 jirka iyo 9 jirka odayaasha la siinayo oo gabdhaha waxba xilli in wax la baro xilliga wax la baro. adugu waxay sameysay dad badan ayaa ka hor yimid oo yiri waxay wado wax yani dhaqankeena caadadeena ka soo horjeeda. adugu muddo kadib gabadhaas waxay aad ugu dadaashay inay gabdhaha wax barto, gabdhaha wax fahansiis u sheegto. adugu waxa dhacday gabar yar bay la kulantay Amina la yiraahdo, gabdhaha caawisay ayay ka mid ahayd. Amina waa gabar yar oo 12 jir ah, waxay maxbuus u ahayd oo u xirnayd ninkeedii ayay dishay la yiri. ninkeedu dee wuxuu ahaa oday weyn oo qof kale ayaa dilay oo dambiga dusha ka saaray oo waxa lagu riday biyaa lagu riday oo webi badda lagu riday. adugu waxyaalahay ku dooday waxaa ka mid ahaa Khadiijo sidee ilmo yariis ah nin intaasoo sano jiro oo ka weyn tay qaaday haday dishay lacala ay ceejisay sidee bay ugu riday biyaha, sidee bay yani ugu riday biyaha ayay ku dooday. gabadha yarta Amina waxay u taagneed in la daldalo oo yani toogasho ayay u taagneed. adugu meeshii ay qaadigii la hadashay xukunka laga khafiifiyay ayay tiri gabadhan yarta arrintaas maba samayn kartaba wax qof samayn karaba arrintaas maahan, maba qaadi karta ninkan lacala way bedishay laakiin sidee bay u qaaday oo ugu riday meydkiisa biyaha. adugu sidii ayaa xukunkii looga khafiifiyay. markii dambena wayba u dooday waxay tiraaday gabadha yarta waxay u guuriyeen qaab sharci ahaan bay la tigsatay iyadoo yar ah. adugu xoogaa xukunkii waa laga khafiifiyay Amina. waxyaalahay sameysay gabadhaas inay gabdhaha waxbarasho u sameyso oo maaragtaa wacyigelin u sameyso ayay maaragtaa waxyaalahay sameysay ka mid ahaa. markii dambe Khadiija waxay u guurtay Faransa, ayadii ninkeedu xaggaasay degeen oo wadankaas ayay ciqaamad deganaansho ka qaateen oo iska degeen. waxaa dhacday inay ku aragtay gabar la yiraahdo Juud oo iyada yani arintii qisadii Khadiija ku soo martay laftirka qisadaas oo kale yani ayadana sheeganaysa. buug ayay ka qortay oo loo bixiyay yani gabadhii yani
iyadoo yar yani juudi dulmanayd oo iyadoo yar macnii guur iyadoon gaarin loo guuriyey macna yani saas oo kale ciwaan ah ayaa loo sameeyey qisada buugeeda riwaayad yar xataa waa laga sameeyey oo lasoo bandhigi jiray si bulshada loogu wacyigeliyo waxay kaloo qortay dee gabadhan bugaag badan ayay ka qortay waa aniga malikatu saba bugaagteeda ayaa kamid ahaa ay qortay waxaa kaloo kamid ahaa gabadha yamaniyada ee dulman yani waa kamid ahaa bugaagtii qortay aduu bugaag badan ayay qortay riwaayado badan ayaa laga sameeyey meeshaas ayay iyadoo joogta ayay waxay samaysay jamciyo yani mu'asaso khayri ah oo gabdhaha yamaniyiinta ah wax lagu baraayo oo gabdhaha yararka loo guurinayo oo waalidiintooda in yani dhaqankaas laga guuro ayay macnihii ku dadaalaysay waxbarasho free ah ayay bixinaysay waxayna waxbarashadaas freega ah oo maalgelinta sameynayay naag oo faransiis ah oo ganacsato ah oo ayay la soo xiratay naagtaas waxay gedi jirtay waxa loogu iibgeyn jiray dharka cabaayadaha xijaabada gabdhaha islaamka xirtaan ayaa iib ahaan loogu geyn jiray faransa sidaas ayaana iibkaas kharashka kasoo baxa iyo dakhliga kasoo baxa ayaa jamciyadda dib u qaaday loogu maalgelin jiray sidaas ayaana maaragtaa ii sheeg muxuu ahaa gabdhaha yararka waxbarashadooda lagu bixin jiray lagu dabari jiray adugu maasha allah khadiijo way dadaashay wax badan ayayna ka bedashay in maaragta gabdhaha ay u samayso waxbarasho free ah in maaragta wacyigelin badan ay samayso in maaragta ii sheeg bugaag badan ay gabdhaha u qorto marka maasha allah kolley khadiijo wadankeedii gabadhaas waxbay u tartay oo gabdhihii yararka ahaa oo waxbarasho la-aanta ahaa ayay waxbarasho u samaysay gabdhihii yararka ahaa oo maaragta guurka iyagoo yaryara la siin jiray dhaqankaas ayay maaragta meesha ka saartay dad badan ayaa la tababaray oo maaragta dadka wacyigeliya bulshadii xoogaa maaragta wax badan bay fahantay sidii hore loogu taagnaa looguma taagnayn markii dambe dee dhaqan ahaanna waxaaba dhaqanka ah magaaladaas waxaa dhaqanka ahaa in gabdhaha ayagoo yaryara niman waaweyn la siiyo oo maaragta aan guur gaarin iyadoo gabadhii waqtiga wax baran lahayd ilaa 9 jir waa garan kartiin maanta anaga noo jooga waa ilmo yar oo maaragta oo wax baranaya oo waxa weeye oo la leeyahay xijaab xiro wax cun wax marada xiro saan yeel qubayso la leeyahay waaye marka kulli dulmi badan ayaa meesha ka jiray khadiijana waxay isku dayday inay wax badan bulshadeeda ka bedasho maadaama ayadu dhibku ay soo aragtay qisada asxaabay qisada khadiijo intaas ayaan kusoo koobayaa aad ayaa ugu mahadsantihiin dhegeysiga aad dhegeysateen qisadeeda waxaana rajeynayaa insha allah haddaa qisadan ka heshay inaad maaragtaa subscribe-ka ii saarto like-ta ii saarto intaan qisadan qisa lamida ku kulmi doono asxaabtayda waxaan idin leeyahay fi amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu